بسم الله الرحمن الرحيم وعشر كان امتحان على لغة HTML5 عشر كان maanta waxaan ku qaadan dhigi doonaa headings iyo paragraphs waa maxay hadaba headings ku wuxuu qeexaa kala saraynta page-kaaga tusaale ahaan marka aad word isticmaalisid boggaagu wuxuu leeyahay ciwaan oo heading ah kabacdina paragraph-ka ayaa samaysaa marka HTML-kuna wuxuu leeyahay headings uu leeyahay waxaa loo jiraa 6 nooc oo heading ah H1 ilaa H6 لحنا النوع heading كوسكو كوا heading 1 2 3 4 5 6 لحنا النوع كوي كان ugu sareeya ayaa ugu xarfo weyn halka kugu hooseeyana uu leeyahay xarfaha ugu yar yar hadaynu soo kicino folderkeeni waxay nagu jira 13 sidoo kale waxaanu sameyn karnaa double click ayaynu siin karnaa waxaanu dhigi karnaa open folderkeena fur kabacdina folderkeena wuxuu leeyahay desktop-ka folderkana aynu dooranayna kabacdina halkan ayuu noo soo wada dhigayaa wax alaala waxaynu furnay kan wasi ka saarayna qaabkaasna waynu isticmaali karnaa markaan doonayno new folder ku darno adigu ku soo dari kartaa si qaabka hore ayaad adeegsan kartaa like right click waasin kartaa new file ayaad samayn karaysaa waxaynu ka soo koobi garaysanaa filekan kii ugu dambeeyay ayaynu ka soo koobi garaysanaa koobi xaggan ayaynu keensanaynaa kabacdina waxaan u bixinaynaa headings .html so waa maxay headingsku marka headingsku waa waxay ku qeexayaan kala saraynta bogga halkan hadda kale h1 baa ku arkaysay b baa ku arkaysay waxa laga yaabaa inaan sharaxaadooda garanayn halkan haddaynu bixino headerada waxaa jira 6 nooc oo heading ah oo aynu casharkana ku soo aragnay waxaa ka mid ahaa h1 ilaa h6 marka waynu wadaynaa waxaan dhahnay waa adiguna dhakadaad kala soconaysaa heading-ka koowaad koobi gare sawir kabacdi waxaad samayn kartaa haddii aad isticmaalaysid waxaa la dhaho kanoo kale intaad right highlight garaysid ayaad waxaa dhahaysaa intan oo kale bedel saddexdaaba isku mar labaad iga dhig kan saddexdaaba marka waxaad qabanaysaa control D waad qabanaysaa haddana qabanaysaa kabacdi saddexaad iga dhig afaraad shanaad lixaad adigu videoga waa isdaajisan kartaa qaabka ayaa u samayn kartaa haddii aad ila socotidna control D ayaad qabanaysaa oo noocan isticmaalaysid text editor-kan marka waa kan qaabka ugu kala waaweyn bal ayaynu eegi doonaa right file ayaynu tegaynaa save ayaynu leenahay haddii se hore kugu save garaysnayna save as dheh magac u bixi kabacdina .html raaci haddaynu tagno location-keenii aynoo yaalay folderku heading right click ayaynu siinaa kabacdina waxaan ku furaynaa Google Chrome waa kan kani waa heading-ka koowaad marka waxaad arkaysaa h1ku inuu ugu weyn yahay h6kuna uu ugu yar yahay sidoo kale attribute ayaa xagga kaga dari kartaa ha u adeegsan headingska inaad ku samaysid bold italic waxna bold inaad ku samaysid sababta isaga ayaa bold iska ahba dafartiisa aad ka siligtay far burburan u imaanaynaa waa maxay iyaguna paragraphsku waa elementi loo adeegsado inuu qoraal ku daro boggaaga weliba dhanka ubuucda inta badan bodiga waa kan paragraph wuxuu leeyahay tagga b taggaas oo furan iyo b tag oo xidhan iyo content-gii ku dhex jiray marka intaas ayaa ah hal paragraph kanna waa maxay waa paragraph labaad tusaalayaashooda mulmul ayaynu eegi doonaa file ayaan leenahay new file ayaan furaynaa intan ayaynu soo koobi garaysanaa copy dhe control c kabacdi control v intan inaga saarba kabacdina waxaan leenahay save as paragraphs kabacdina meeshan labadan heading ayaynu bedelaynaa kan waxaanu ka dhigaynaa b oo ah paragraph kabacdina halkan waxaan ka dhigaynaa paragraph xidhan halkanna waxaanu ku samayn karnaa paragraph labaad oo waxaanu qoraynaa kani waa paragraphka ka koowaad mid labaad oo kale waxaad kaloo dhexgelin kartaa qoraal dheer wax alaala wixii paragraphka hoos imaanaya
qoraal dheer ayaa dhex gelin kartaa. inta badan qoraalka dheer meesha doonta ay kasoo kubgaraysan kartaa, laakiin waxaan isticmaali karnaa kale wax loo lorem oo ku dhex jira text editor-kan. qoraalka iska ugu talagalay tusaalaha inta ayaa ka saaraysaa, kadibna wuxuu ku sheegay in labadan paragraph haddaynu folderkeeni tagno aan paragraph iska right click siino open iska furno Google Chrome, waxaa arkaysaa hal paragraph iyo weliba hal paragraph oo kala dheer. hadhow ayaad wax ku samayn kartaa alignment ku samayn kartaa. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.